kanaalkan waxaynu hore ugu soo bandhignay safaro badan oo lagu tegay deegaanada qaboobaha daran ka dhaco ee Arctica. Safaradaasina badanaa waxay ku bilowdaan hami weyn iyo ballanqaadyo culus, balse ugu dambeyntii waxay ku soo gabagaboobaan masiibo iyo baaba. Marar badanna maraakiib fara badan ayaa barafka dhexdiisa ku lumay, taasuna keentay dhimashada qaar ka mid ah ama dhammaanba badmaaxintii saarnaa. laakiinse sheekada maantu way ka yara duwan tahay. kaniimaha safar ku soo dhammaaday burbur gebyahaaneed, markab qoysay, mana jirin gaajo wadareed ay dadku wada dhinteen. haddana iyadoo sidaasi tahay, haddana wuxuunbaa safarkani dhexdiisa ka dhacay, taasuna muddo qarni ka badan qarsoonayd, waxayna noqotay sir aad u naxdin badan oo markii la helay kontomiyadii sane ee u dambeeyey gebiyahaanba beddeshay taariikhdii lagu ogaa safarkan. kani keliya ma ahayn safar saamin Arctic oo fashilmay oo quryaata, balse waxa waa wax aad uga sii xun oo uga naxdin badan. cirifka waqooyi waxa uu muddo dheer ahaa mid ka mid ah meelaha ugu dambeeya ee aan dunida la gaadhin, isagoona ahaa abaalmarin hantiya oo aan weli la hantiin oo ku yaala darafka ugu sarreeya adduunka. sabab weyn ayaana jirtay oo keenaysa midaasi, waana inay tahay meeshaasi meelaan qofna u naxariisan. waa cidlo barafa oo ay ka buuxaan baraf dhaqdhaqaaqaya, dabaylo baan iyo qabow dhuuxa daloolinaya. isku daygii ugu horreeya dhabta waxa uu dhacay sanadkii 1887, markaasuna Sir Edward Barry oo ka tirsanaa ciidanka badda Ingiriisku uu kici timay dhinacaasi Arctica, isagoona wata gaadhi barafiyo iyo doonyo, isagoona rajaynaya inuu gaadho cirifka waqooyi. balse ugu dambayntii ku dambayn doonaa fashil, kadib markii is hortaagay baraf aad u halisa iyo barafka laftarkiisa oo u sii sibibixanayay dhinacaas iyo koonfurta, weliba si xawaaro leh. 15 sane ku xigay waxa soo baxay dad kale oo isku hami ahaayeen, diyaarna u ahaa inay wax kasta u horaan saamintaasi. haddaba dalka Maraykanka ayaa markaasi tartanka gaadhista qudbiga waqooyi u badheedhay oo u tartamay, iyagoona u diray safaro iyaga u gaara Arctica. waxaana bilaabay safaradaasi saaminta Maraykanka laba badmaaxe oo loo kala magacaabi jiray Elisha Kent oo safarkiisu ahaa sanadkii 1853, iyo Isaaq Israa'iil Hayes oo isna safarkiisu ahaa sanadkii 1860. mid kastoo iyaga ka mid ahna waxay isku dayeen inuu in yar hore uga sii socdo oo uu ka sii fogaado intii hore loo gaadhiyey, si wax ugu daro aqoonta laga hayay gobolkaasi qaboobaha daran ka dhaco ee Arctica. laakiinse midkoodna muusan dhowaanin gaadhida cirifka waqooyi ee adduunka. intaasi kadibna waxa masraxa soo istaagay Charles Francis Hall. ninkani waxa uu ahaa nin gebi ahaanba ka duwan saamiyaashiisii ka horreeyey. ma uusan ahayn sarkaal ciidan, saynisyahan ama badmaaxe rugcadaaya, dhab ahaantii muusan lahaynba xitaa wax tababar oo rasmiya. weligii markab muusan hogaamin, sannado badanna muusan dhex mushaaxinba badda, xitaa jaamacad muusan tegin, waxna kamuusan baran aqoon-yahanadii waaweynaa ee xilligaasi joogay. wuxuu ahaa birtume iyo xirfadlo waxardha, isla markaasina wuxuu ka shaqayn jiray daabacadda wargeysyada ka soo bixi jiray magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio. run ahaantii wakhtigiisa intiisa badan wuxuu ku bixin jiray daabacadda wararka ku saabsan safarada Arctica. halkaas ayayna isaga laftarkiisa kaga dhalatay hamiga gaadhista Arctica, markii dambena ka dhigtay magaciisaba mid lagu xardho taytalka iskudayga ku dhiiranaa ee Maraykanku abid sameeyo. haddaba sidee ayay ku dhacday in caynkaasi oo kale uu gacanta ku dhigo howlgal ay dowladdiisu maalgelinayso cirifka waqooyi lagu tegayo? jawaabtu waa mid fudud, sababtoo waxa uu lahaa soo jiidasho la yaab leh, go'aanan gabasho yaqaanin iyo hami waali ku dhow. Charles waxa uu bilaabay inuu ugu waasho hadalaynta Arctica dabayaaqadii 1850-yadii, xilligaasuna masiibadii ku dhacday safarkii Sir John Franklin ee sanadkii 1845 ee maskaxda dadweynaha weli kasii guuxaysay oo qabsatay. koox ka koobnayd 129 nin ayaa ku dhex luntay barafka dhexdiisa kadib markii markabkooda ku dhex xayirmay gudaha barafka dhexdiisa. dhacdadan ayaana Charles la yaab loo soo jiidatay. wuxuu u kuurgalay oo u dhundaloolaaday warbixin kasta iyo wax kastoo yar oo raada uu heli karayay. dabadeedna waxa uu sameeyey waxaan caadi ahayn, waxa uu anbabaxay inuu soo raadiyo halkii ugu dambeeyey ee safarkii Franklin laftarkiisu ku dambeeyey, isagoona haysan weliba wax taageero dowladeeda ama kooxo saynisyaana. Charles waxa uu sanadkii 1860 fuliyey 2 safar oo isaga u gaara uu ku tegay Arctica. wuxuu u kuurgalay sidii uu ku soo heli lahaa xaqiiqada wixii ku dhacay raggii la socday Franklin. 8 sano ayuunu dhex tegnaa qowmiyadda Inuitiga,
isagoona bartay dhaqankooda ururiyena agab iyo maraka iftiiminaya musiibadii dhacday. Arctica dhexdiisa waxuu kula kulmay Ibrafik iyo Taqlutuq oo ahaa laba qof oo Inuitiya oo ku hadli jiray luqadda Ingiriisiga, horena waxay u soo booqdeen dalka Ingiriiska. waxay Charles bareen sida barafka loogu dhex socdo, sida cuntada loo ugaadhsado, iyo sida loogu badbaado deegaan ay dad badani ku hoobteen isaga ka hor. markii ugu dambayntii gurigiisii ku soo laabtina waxa uu siday agab taariikhiya iyo khibrad qaaliya, taasuna caddayn u ahayd inuu Arctica ku dhex noolaan karo, u adkaysan kara qabowgiisa baana, dhex mari karana dhulkeeda iyo baddeeda barafka noqotayba. Charles waxa uu ahaa nin la aftahanimo dadka wax kasta kaga dhaadhicin karo, gaar ahaana kartida iyo aqoontu sug leeyahay. markii uu dalka Maraykanka dib ugu soo laabtay wuxuu isku bandhigay inuu yahay khabiir u dhuun daloola arrimaha Arctica, inkastoo uu si buuxda u dhowxay aqoontii ay bareen dadka Inuitiga, haddana halkii uu ka ammaani lahaa doorkii ka qaateen cilmigiisa. waxaa la rumaysan yahay inuu sheekadii dhinac kale u rogay oo uu dafiray si uu isagu magac iyo darajo sare ugu helo. markii ay madaxda dowladdu wax ka weydiiyeen aqoontiisa dhinaca maadiga, wuxuu bilaabay inuu iska dhigatiro walaacooga, isagoona xasuusiyey in sahamyaal badan oo waaweyn aysan aqoon cilmiyeed u qoto dheer aysan lahayn markii uu kicitimiya saamaynta dhulka qaboobaha daran ka dhaco ee Arctica. intaasi kadib wuxuu markaasi bilaabay olole aan joogsi lahayn, isaguna dacwadiisa hordhigay Koongareska, kuna dooday inuu isagu yahay ninka ugu habboon ee hogaamin kara safarka xigay Maraykanku ku tegayo Arctica halkii looga dhiibi lahaa saraakiisha ciidanka badda. sanadkii 1870 dhabar adeegiisii ayaa midho dhalay. Koongareska ayaana ansixiyey deeq dhan $50,000 oo xilgaasi joogtay oo loogu talagalay safar lagu tegayo cidhifka waqooyi. Charles ayaana loo magacaabay hogaaminta howlgalkaasi. madaxweynihii xilgaasi ee dalka Maraykanka oo lagu magacaabi jiray Ulysses S. Grant laftarkiisa ayaa qalinka ku duugay oo saxiixay qorshahaasi, waxaanu xitaa Charles siiyey darajo sharafeedka kabtan. inkasta uusan weligii markaba hogaamin, haddana Charles waxa markani dhabarka ka taageerayay dowladda Maraykanka oo dhan, waxaanu u anbabaxay darafka ugu sareeya dunida, waxaana loo dhiibay markaba uu ku shaqeeyo oo culayskiisu yahay 287 tan, lana odhan jiray USS Springwinkle. markabkaas waxaa dib u habeynayay qalbayn ballaadhan ku sameeyey ciidanka badda ee Washington safarkiisa awgiis, waxaana lagu xoojiyey alwaax adag iyo biro, magaciisana waxaa loo bedelay Polaris. tani waxay fursadii uu Charles sanadaha badan soo halgamayay, balse isla waqtigani waxay xilligii ay bilaabeen inay soo baxaan daldaloolada qorshihiisu. inkastoo Charles xariif ku ah soo jiidashada dadka, haddana kumuusan fiicnayn doorashada raggii saxda ah ee safarka ku yeelin lahaa. wuxuu isku keenay koox isku dhex qasan oo aad u qaab daran, isagoona aad u xushay ragga nibiriga ugaadhsada, halkuu ka soo xulin lahaa askar anshaxiyo asluub leh oo ka tirsan ciidanka badda. raggaasna waxaa ka mid ah Sidney Boddington oo ahaa kabtan nibiriga ugaadhsada oo rog cadaaya, George Tyson oo ahaa kaaliyaha hagaa markabka, iyo Emil Beselis oo ahaa dhakhtar iyo saynisyaan daayar oo u dhashay dalka Jarmalka. dhibaatadu waxay ahayd in raggii saarnaa markabkiisa ee uu soo xushay aysan wax ixtiraamaba u haynba Charles bilowgiiba. waxay u arkayeen nin isyeelyeelaya oo iska dhigaya saamiye isagoon dhab ahaantii aan aqoontaasi lahayn. waxaa ka sii darnayd in Charles iyo Sidney ay ka dhexaysay xurgufar oo aad u xumayd. sannado ka hor ay isku dhaceen, taasuna ku timiday markii Sidney uu diiday Charles inuu kaxaysto hagayaal Inuitiya xilli ay xanuunsanayeen. cadhadaas ay isku qabeenna weli qalbiyadooda ay ku jirtay. arrintan waxaa sii murjinaya ay ahayd in Charles, Sidney iyo George ay dhammaantoodba ahaayeen kabsanno darajo leh. sidaasi daraaddeed tan iyo bilowgiiba markabkii Polaris waxa uu ekaaday meel ay madaxdu ku badan yihiin, balse aanay ka jirin wax isku duubniyihi. si kastaba ahaatee markabkii Polaris waxa uu kicitimay 29 Juun 1891, isagoona ka anbabaxay dekedda ciidanka badda ee Brooklyn xilli barwaaqo iyo qorxi jirto. tani waxay u muuqatay bilow guul weyn ku bilaabmay, maadaama uu bilaabmay iskutaygii ku dhiiranaa ee Maraykanku ku rabay inuu ku tago cidhifka waqooyi. balse xaqiiqadu waxay inuu halkani ka bilaabmay burbur tartiib oo aan weliba laga baaqsan karinin. dhibaatadu waxay dhalatay intaanu markabku dekedaba ka dhaqaaqin. raggii sida degdeg ahaa la soo keenayna ayaana bilaabay inay kala yaacaan. 4 nin ayaana durtadiiba baxsaday, kuwaasani ku jireen kuwgii cuntada karinayay, badmaaxe, nin dhuxulshida iyo kaaliye injineerka. dhammaantoodba way dhuunteen
ka hor intaanu furanba markabku. ninkii adeegahaana waxaa la arkay isagoo sakhraasan. Charles ayaana isla goobta shaqadii kaga eryay, waxaana khasab noqotay in daqiiqadii ugu dambaysay la raadiyo kaaliye injineer oo bedela kii baxsaday, taasoo keentay inuu safarku dib u dhaco isagoo aan bilaaminba. markii uu markabkii Polaris gaadhay St. John's oo ku taala Canada, xurguftii ka dhex jirtay saraakiisha iyo kooxda saynisyahanada waxay isku beddeshay caasinimo iyo amardiida cad. Polaris isagoo garab ka helay khabiirka saadaasha hawada ee Frederick Mayer ayuu si badheedh u diiday inuu aqoonsado hogaaminta Charles ee ku aadan kooxda dhinaca sayniska. amardiidadaasina waxay turtadiiba ku faaftay shaqaalihii kala dhexdooda, taasuna sii kala fogaysay raggii markabka saarnaa. Charles waxa uu hogaamiyaha rasmiga ee safarka, laakiinse marka sida dhabtaa loo eego awooddiisa maamul waxay ahayd mid shaki ku jiro. tan iyo maalintii koowaadba raggu waxay u kala jabeen koox, xitaa haybtooda ay ka soo kala jeedeen ayaa door ku lahayd kala qaybsanoontoodaas. raggii Jarmalka waxay la safteen Polaris, halka raggii Maraykanka ahaana ay u xagliyeen dhinaca Charles iyo Sydney. intaasoo dhanna ay sii socdeen. George Tyson waxa uu qoriyay xusuus qor, waxaana ku xusay in markii ay gaadheen jasiiradda Disco ee Greenland ay raggii qaar ka mid ah si cad u dhihi jireen inaan Charles marnaba lagu aamini doonin safarkani. qaarkood waxay sii qorshayeen inta ay soconayaan iyo goorta ay soo laabanayaan, iyagoo aan waxba iskaga tirinayn amarada ka soo bixi kara hoggaanka howlgalka. Charles markii uu arkay in awooddiisu gacantiisa ka sii baxayso, wuxuu caawimaad u raadsaday qof dibadda ka jooga markabka. waxaanu ahaa Captain Henry Davenport oo watay markabka sahayda ee ka dambeeyay iyaga oo lagu magacaabi jiray USS Congress. Charles oo raba inuu si degdeg ah u soo celiyo kala dambeyntii, wuxuu Henry ka codsaday inuu gacan ka siiyo diminta kacdoonka ka dhex jira shaqaalaha dhexdiisa. intaasi kadibna Henry ayaa markaasi soo koray markabkii Polaris, waxaanu ugu hanjabay Frederick inuu silsilad ku xidhi doono markabkan uu ka saari doono caasinimadiisa awgeed. laakiinse taasi dabka ayuunbay ku sii shatay markii uu Henry raggiisa xun u canaantay. dhammaanba shaqaalihii Jarmalka ayaa ugu hanjabay inay shaqada isaga tegi doonaan si uusan safarka u fashilmin. haddaba Charles wuxuu ku khasbanaaday inuu tanaasulo, inkastoo Henry uu raggii u akhriyay cashar adag oo ku saabsan anshaxa ciidanka badda ka hor intaanu aanba bixin. iyadii taasi jirto, haddana hadalkaasi oo dhan waxuu noqday hal bacaad lagu lisay. waxyar kadib waxa markabkii Polaris ku dhacay dhibaato kale oo culus. qalabkii gaarka ah ee loogu talagalay in markabka lagu kululeeyo ayaa badda lagu dhex tuuray. lamana ogaa inay arrintaasi hagardaamo ula kac ahayd iyo inay ku dhacday sababtoo ah aqoon yari jirtay awgeed iyo in kale, balse saamaynteedu waxay dhab ahaantii mid aad u xun, maadaama oo qalabkaasi la waayey. awooddii uu markabku isaga caabin lahaa qaboobaha daran ee Arctica ayaa aad u weeqantay. si kastaba ha ahaatee, Charles iyo kooxdiisii way sii dhiiradeen oo hore ayuu sii socdeen. 18 Augustna 1871 markabkii Polaris waxa uu gaadhay magaalada Upernavik ee jasiiradda Greenland, taasoo ahayd meeshii ugu dambaysay ee nolol iyo magaalo lagu ogaa. intaanay barafka dhex muquurin oo inuu waqooyiga u sii socon, Charles wuxuu kooxda ku soo daray saaxiib oo la odhan jiray Hansare oo ahaa ugaadhsadeen Witiya oo deganaa deegaanka Greenland, horena qayb uga ah safaro muhiima oo dhulkaasi lagu tegay. Hans imaatinkiisu wuxuu kooxda u ahaa garab weyn, waayo wuxuu aani yaqaani siraa barafka loogu dhex badbaado, isla markaasina cunto soo ugaadhsan karay tiimka hadday ay sahaydu gabaabsi noqoto. inkasta oo xurguftu weli taagnayda, haddana markabkii Polaris waxa uu jeestay dhanka waqooyi iyo biyaha aan weli khariiradaha lagu haynay Smithson iyo Nares Street, wuxuuna dhab ahaantii dhaafay rikoodhkii ay hore u dhigeen saamiyaashii isaga ka horreeyey ee Ken iyo Hayes. markii ugu horreysay muddo bilooyin Charles waxa uu dareemayaa rays raja, waayo markabku waxa uu gaadhay meel ka fog meel kasta uu abid markab Maraykanka gaadhay 1933. hadafkiisuna waxa uu muuqday mid uu gacanta ku hayo, balse hoos ahaan isla cuqdadii iyo nacaybkii hore ayaa weli raggii kala dhex taallay oo kala qaybinaysay. haddii uu Charles isla guushin weyn baa kooxda midayn doontaa, wuu qaldanaa. isla xilligaas bayna ahayd markii la damcay in la gaadho go'aan masiiriya, kaasoona ahaa ma inaan hore u sii soconnaa mise waa inaanu halkani joogsanno oo ku jiilaalsanno. Charles waxa uu ku adkaystay isagu inuu hore loo sii kicitimo, laakiinse markabkii Polaris waxa durtadiiba xayiray barafka
in lug iyo gaadhi baraf lagu sii socdaana waxay u ahayd fursad hortaalla u furan, balse raggii saarnaa markabku isku mid kamaysan ahayn qorshahaasi. khilaafkii xuduntu ah safarka ayaa cirka isku sii shareeray markii Charles iyo George ay ku doodeen inay socodka sii wadaan iyo in kale. waxayna rumaysnaayeen in haddii waqooyiga loo sii ruqaansado ay gaadhi karaan cidhifka Arctica ka hor intaanu barafku isa soo xidhin. laakiinse Sydney isagu waxuu rabay in la istaago. wuxuu safarka oo dhan ku tilmaamay mashruuc waaliya oon waxba laga dhexlayn ama laga faa'iidayn. waxaanu si cad u diiday inuu markabka halis intaasi ka sii weyn sii geliyo. Charles iyo Sydney si xun ayay halkaasi ugu murmeen ilaa uu Sydney isaga baxay fadhigii isagoo aan diyaar u ahayn inuu hal erayo kale ka dhegaysto qorshaha Charles. maalba maalinta ka sii dambaysta Charles awooddiisa maamul ee safarka ayaa sii wiiqmisay ilaa ay gebi ahaanba fariisa ka baxday. muusan amri karin Sydney la'aantiisana dhaqaaqa markabku suurtagal muusan ahayn. sidaasi daraaddeed markuu door kala waayay Charles waxa uu amray in markabku Polaris lagu xidho meel waabsan oo gabaada oo ku taalla xeebta Greenland, isaguna goobtaasi u bixiyey Thank God Harbor oo micnaheedu yahay gacankii Alle loogu mahadnaqay. way iska caddahay in jilaalka Arctic uusan naxariis lahayn. hadday shaqaaluhu rabaanna inay badbaadaanna waxay u baahnaayeen inay dhufaysadooda sii xoojiyaan. waxay turtadii waa bilaabeen diyaargarow. sahaydii ayaana beriga loo soo dejiyey. raashin iyo shidaal badan waa la keydiyey lacalla hadduu markabku barafka ku dhex waxyeeloobo. waxay kaloo barafka dhexdiisa ka dhisteen hooy iyo xero jiilaal say gabaad uga dhigtaan haddii uu markabku noqdo meel aan la deganaan karin. kooxa ugaadhsataa ayaa iyaguna la abaabulay si ay u soo dilaan libaaxbadeed iyo hoombarooyin iyo weliba wixii kale ay deegaanka ka helaan si raashinka loogu kobo. laakiinse inkastoo ay hawshaasi badbaadadu socotay haddana xurguftii iyo cuqdadii ragga dhex taalay weli cirka ayay maraysay. Charles waxuu gebi ahaanba ka qoostay rajadii ka qabay Sydney. sidoo kale waxuu si hoose ugu qortay George isaguna inaan Sydney marnaba markabka lagu aamini karin uuna u hayo arrintaasi sababo badan oo uga walwalo oo uga walaaco. mid ka mid ah sababahaasina waxay ahayn inuu Sydney xoog ku jabsaday bakhaarkii khamriga isaguna si baan u cabiyey xilli uu safarku qarka u saarnaa fashil. maadaama uu ahaa kabtaankii dhanaa ee markabka waxa lagu sugayay inuu badbaadada raggiisa hubiyo, balse isagu sakhraannimo waxaan ahayn uu ku mashquulsan aaminsan jiray run ahaantii. waxaase ka sii yaabadnay middaasi in Sydney uusan keligiis ku hayn arrinkan ee badmaaxin injineerka markabku lagu magacaabi jiray Emil Schumann ayaa isna gaadhay heer uu farsameeyo furay spare party oo la mid ah kii Sydney oo kale si uu galo meesha khamriga lagu kaydiyo. tan waxay gebi ahaanba burburisay anshaxii kala dambayntii markabka taalay, iyadoo masiirkii markabku uu mugdi ku dhow yahay. awooddii Charlesna ay maalinba maalin ka sii dambaysa ay sii dhimanayso. wuxuu go'aansaday Charles inuusan jiilaalka oo dhan iska fadhiyin. wuxuu islahaa haddii aad lug iyo gaadhi baraf aad ku tagto meel ka fog meeshii hore waxaad soo ceshan kartaa kalsoonidii ragga, waxaanaad xoojin kartaa hoggaamintaada. intaan u bixin wuxuu Sydney u qoray amro tafaasiil leh oo faahfaahsan oo ku saabsan sidii markabka loo maamuli lahaa. tallaabadaasuuna ku dhaweyd inay dabka sii horiso. Sydney oo ahaa nin badaa waaya aragnimo buuxda u leh muddo 10 sano ah inuu amarada ka qaato Charles oo aan weligii markab soo xukumin waxay u isaga siduu u arkayay meel ka dhaca iyo bahdilaad. si kastaba ahaatee 10 Oktoobar 1871 Charles ayaa u baxay safarkiisii gaadhi barafka ahaa. waxaana ku weelinay safarkan Hubert Chester iyo labadiisii hageeyeen witiga uu aaminsanaa oo lagu kala magacaabi jiray Ibrafik iyo Hans. dhowr maalmood kadibna Charles wuxuu Hans dib ugu soo diray markabka si uu soo qaado agab looga soo tegay markabka dhexdiisa. waxaanu u soo dhiibay warqad ku socota Polaris isaguna ku xasuusinayaa inuu maalin kasta wareejiyo furaha saacadaha si uu sii shaqeeyaan oo u sii sheegaan cabirka saxda. barigii hore saacadaha qaarkood kumaysan shaqayn jirinba baytariyo ama koronto ee waxay lahayn gariiratooyin ama springs. sidaasi daraaddeed waxaa lahaa furu lagu wareejiyo si loo geejiyo ama loo adkeeyo gariiratooyinkaas si ay si saxa ugu sii shaqeeyaan. tani run ahaantii waxay u muuqatay tilmaan yar, balse waxay si xun uga xanaajisay saynisyahankii Jarmalka haysatay shahaadooyinka jaamacadaha ugu waaweyn ee qaaradda Yurub oo dhan. amradan yaryarina waxa uu la muuqdeen inuu Charles rabo inuu yeedhiyo wax kasta oo shaqadoodu ahayd oo ay qabanayeen. muddo 2 toddobaad ayay barafkii dhaxanta dhuuxa taloolinaysa la tacaalayeen iyagoona si tartiiba waqooyiga ugu sii suqayay. ugu dambayntiina 24 Oktoobar waxay dib ugu soo laabteen markabkii Polaris waxaanu u haraansanaa inuu raggiisa la wadaago wixii uu soo saamiyey oo soo arkay. balse si la yaab leh subaxii xigay waxa uu galay halgan uu naftiisa ku badbaadinayo. markii uu markabka ku soo laabtay Charles aad buu u faraxsanaa wuxuuna dareemay inuu soo qabsaday hawshii uu soo kicitamay
uuna soo ururiyey xog aad u qaaliya. isagoo haddaba qolka dhexdiisa isku digirinaya waxuu dalbaday koob bun oo kulul. markii loo keenay ayuuna cabbidii bilaabay, balse isla markiiba wuxuu dareemay macaan uu bunka hore ugu aqoon. macaankaasi ayuuna cabbaar la istaagay, laakiinse isagoo sii macaansanaya inuu istiiriyo ayuu iska sii dhammaystay. dhowr saacadood gudahoodna waxa qabatay calool xanuun aad u daran, waxaanuu bilaabay inuu si aan kala joogsi lahayn u mantago ama u hunqaaco, iyadoo ina maskaxdiisuna gashay wareer iyo dawakhaad. maalintii xigtana xaalkiisu wuxuu gaadhay heer xitaa uu dhaqaaqi kari waayo. wakhtiyada uu miirku waxoogaa u soo yar noqdo waxuu sheegayey war naxdin leh, isagoona sheegayey inuu qofun sumeeyey. eedaymahaasi waxay u badnaayeen dhanka Basilis iyo xubno kale oo shaqaalaha ka mid ah. Charlesna wuxuu gebyahaanba diiday inuu daweeyo Basilis, waxaanu cabbitaan kasta oo loo keenay ka aqbalayo qoryaatowna taqalluutiq oo ahayd gabadhii inweytiga ahayd uu aaminsanaa. xusuus qorkii George uu qoray wuxuu ku sheegay in Charles uu ku adkaystay inuu shakigiisu dhab yahay, isagoona rumaysnaa in si uu la kaca shirqool loogu dhigay isaga. Basilis dhankiisu wuu iska fogeeyey eedaymahaasi, isagoona ku adkaystay in Charles uu ku dhacay xanuunka istaroogga ama faaliga loo yaqaano oo laga yaabo inuu qabowgii safarka uu ku soo maray uu ku sababay. laakiinse si aan la sharaxi karin, kadib markii uu in yar soo roonaaday ayuu Charles isdhiibay, waxaanu oggolaaday Basilis inuu daweeyo 4 Noofembar. isla markii ay daaweyntiisii bilaabantayba xaalkiisii si xawaare leh ayuu sii xumaaday. wuu miir doorsoomay, qandhii gariir baanbaan iskugu yimiday. ugu dambayntiina wuu geeriyooday 8 Noofembar, waxaana u geeriyooday xanuunkii hayay. Basilisna waxuu si rasmi u diiwaan geliyey inay geeridiisa sababtay xanuunka apoplegiska oo xanuunka faaliga loo yaqaano, balse wax baadhitaan oo rasmiya lagu sameeyey meydka si loo ogaado sababta rasmiga ee geeridiisa keentay maysan jirin. taa beddelkeeda meydkiisa ayaa xeebta loo qaaday, waxaana lagu duubay calanka Maraykanka, iyadoona lagu aasay dhulka barafka ee Thank God Harbor. shaqaale badan ayaa geerida Charles u arkayay mid shaki weyn ku gadaaman yahay. George-na wuxuu arrintaasi si cad ugu qoray buuggiisii xasuus qorka. wakhtigii uu dhintay waxa uu muuqday mid si la yaab leh ugu soo aaday xilli ay soo ifbaxday guushiisii uu gaadhay. khilaafkii u dhexeeyey Charles iyo saraakiisha sarsare ee markabkuna uu gaadhay meeshiisii ugu sarraysay, gaar ahaanna midkii kala dhexeeyey isagii Sydney iyo isagii Basilis, waxaanu gaadhay heerkii ugu qadhaadhaa toddobaadyadii ka horreeyey geeridiisa. markii uu Charles meesha ka baxayna hoggaankii markabka Polaris waxa uu gacanta u galay Sydney oo ahaa ninkii markii horeba sida adag u diidanaa qorshayaasha Charles. maadaama uu Charles ahaa matoorka dhabta ay dhaqaajinay safarkan, inkasta oo isaga laftarkiisu la daldaloolo dhanka hoggaaminta, haddana ma jirin cid kale oo isku soo dabaridi karaysay raggii markabka saarnaa oon isaga ka ahayn. sidaasi daraaddeed markabkii wuxuu la tiixay xaalad jahwareera iyo qastaro hor leh. inkasta uu Sydney xilka la wareegay, haddana sakhraannimadiisii ayaa dhibaatada sii kordhisay. kala dambayntii iyo aanshixii yaraa markabka ka jirina gebi ahaanba wuu dumay kadib markii la waayey hoggaankii Charles. raggiina waxay noqdeen kuwo aan lahayn ujeedo jaay u socdaana. Charles waxa uu sannado badan isu halgamayey inuu hoggaamiyo howlgalkan, balse hadda dhowr bilood oo qoryaadsi kadib bilowgii safarka waxaa lagu aasay barafka daa'imka ee Arctica dhexdiisa, isagoona ay la duugmeen oo ay la aasmeen riyooyinkiisii ahaa inuu marun soo istaago cidhifka waqooyi. halkii uu ragga ka sii dhiirigelin lahaa uu safarka hore u sii wadi lahaa Sydney, wuxuu oggolaaday inuu howlgalkoo dhamma istaago oo uu sidaas ku fashilmo. khamrigii markabka lagu dhexabi jiray ayaa ku soo batay markabka, maadaama aysan jirin cid Sydney ka hor istaagi karaysay. sakhraannimadiisina waxay u noqotay wax caadi ah oo maalin kasta ku jiro oo uu sameeyo. sidoo kale waxa uu oggolaaday in dhuxushii markabka loo shido ama loo gubo si aan caadi ahayn oo aan laga fiirsan, iyadoo aan qorshe mustaqbalka laga lahayn. kaydkii shidaalka ayaa si kheyr-mas-uulnimo u dhammaanayay, maadaama aysan jirin gacan adag oo wax maamulisay. raggii waxay u xuub siibteen khamaar, sakhraannimo iyo iyagoo u dhaqmaya sidii allaaliyo sidii ay doonaan, maadaama uusan jirin qof xisaabinaya. hanweynidii safarka ahayd in la gaadho cidhifka waqooyi waxay isku beddeshay mid habowa oo aan ujeeddo lahayn. inkastoo markabkii Polaris uu fawdo ku jiray, haddana waxaa jira xubno ka mid a shaqaalaha uu weli rabay inay hore u sii ruqaansadaan. 6 Juun, George iyo Basilis ayaa hoggaamiye koox yaroo doon wata, iyagoona rajaynaya inay helaan marin u dhow cidhifka.
balse nasiib darro iskudagoodii koowaadba durtadiiba waa fashilmay kadib markii barafkii doontoodii burburiyey. raggi waxay gebi ahaanba ka qoosteen gaadhida cidhifka waqooyi. howlgalkiina halkaasi ayuu ku soo afjarmay maadamaysan jirin wax kale qabtaan. bishii Agosto 1872 Sydney wuxuu wajahaada markabka u wiciyo dhanka koonfureed si ay dalkoodii ugu laabtaan. markii bishii Oktoobar bilaabantay iyadoo markabku koonfur sii sabaynayo waxa ku dhufatay duufaan aad u xooggan oo jidka ka weecisay. intaana raggii war iyo wacaal helina markabkii ayaa hal mar gariiray waxaanu si baan ugu dhacay meel barafa. dhuuntii markabka ayaana ruuxantay waxaanu u ciiray calaa dhinac iyagoona biyihiina ay bilaabeen inay gudaha ugu soo butaacaan. jaawareerkaasi dhexdiisa Sydney wuxuu amray qaar ka mid raggii inay barafka dushiisa u baxaan si markabka looga fududeeyo culayska, halka raggii kalena lagu amray inay xamuulka bannaanka u daadiyaan. mugdigaasi dhexdiisa shaqaaluhu waxay bilaabeen in si waali u soo tuuraan sanduuqyada, foostooyinka iyo agabkii kale oo dhan si ay barafka ugu soo duldejiyaan. dhanka kale dabaysha ayaa u guuxisay sidii bahal weyn oo dadcun oo kale ah, codkoodiina way qarisay ama muquunisay. xilli barafkii ku taagnaayeen uu dilaacay. jaawareerkaasi dhexdiisa 19 nin oo ay ku jiraan George, Frederick, badmaaxiin kale, kii cuntada karinayay iyo dhammaan bahagayaashii weetiga ahaa ayaa iyagu aan sugayn ka go'ay markabka intiisii kale oo ka lumay. waxaa la go'ay gobol baraf oo badweynta dul sabaynayay. markii uu waagi baryayna duufaantiina istaagtay raggii goodoomay waxay saarkeen iyagoo markabkii u jira 8 ilaa 10 mayl kuna xiiran gobol barafa dushiisa oo si tartiib u sii yaraanaya. iyagoona quus taagan ayayna mar weyn u ruuxeen dhanka markabkii Polaris iyagoona rajaynaya inuu qofuun arko. Sydney wuxuu maalin dhan isha ku hayay darafka cirifka iyo baddu iska galaan, laakiinse ugu dambayntii wuxuu mudnaanta siiyey badbaadinta markabka. natiijo ahaanna muusan samayn iskuday dhaba uu raggii maqnaa ugu soo gurmanayo. maalintii labaadna isagoo markabkii weli dhibaata ka muuqato wuxuu gebi ahaanba go'aansaday inuusan wax dadaala haba yaraatee dib ugu bixin raadintooda. dadkii barafka ku dul goodoomay haddii nool yihiin iyo haddii kaleba hadda iyaga ayay tahay in isxaliyaan. George iyo raggii kale waxay bilaabeen inay ku urgalaan waxay gacanta ku hayaan markaasi oo daraaseeyaan. waxayna ogaadeen inay haystaan cunto aad u yar, hoyna aysan haysan, manaysan garanayn halka uu qulqulku baddu u sido. Arctic-ku waxuu ahaa meel aad u ballaadhan, biyuhuna waxay u xambaari karayaan dhinac kasta, ha noqoto inay badweynta furan afka ka geliyaan ama inay xeebaha beriga geeyaan ama inay xitaa geeyaan bartamaha barafka culus ee aan laga soo bixi karin. balse waxaa halkaasi naftooda ku badbaadiyey dadkii inweetiga ah ee kooxda ku jiray. Ibrafik, Taqulutiq iyo Hans ayaa durtadiiba hawsha gacanta ku dhigay, waxayna barafka ka dul dhisteen aqalada loo yaqaano iglooga. sidoo kalena baruurtii xayawaanka ayay ka sameeyeen shumacyo ay iftiinsadaan diirsadaan. waxayna ku guulaysteen inay soo ugaadhsadaan libaaxbadeeda, taasoona siisay raggii quusta taagnaa hilib ay cunaan. maalmihii waxay isku bedeleen bilooyin. raggii goodoonsanaana waxay u dhabar adeegeen jiilaalka Arctica ee aan naxariista aqoonin. heerkulku waxuu hoos ugu dhacayay meel ka hooseysa cabirka barafowga biyaha. duufaanada barafka ayaana garaacaya aqaladooda curdinka. raashinkuna wuu sii yaraanayay, mararka qaarkoodna waxay xitaa ku khasbanaan jireen inay cunaan mindhicirada barafka noqday libaaxbadeedka si ay u sii noolaadaan. maysan jirin hab iyo qaab ay ku ogaan karayeen halka u socdaan. waxa keliyaata ay dareemi karayeen wuxuu ahaa inay dhaqaaqayaan. Frederick isagu waxuu rumaysnaa inay u dhowyiin xeebta Greenland, sidaasi daraaddeed waxuu ku dooday inay isku dayaan inay doon ku maraan biyahaas ay u gaadhaan dhulka beriga. balse George oo ku kalsoonaa xirfadiisa hagidda baduhu wuxuu dareemay in xaaladdu taalidkeeda tahay, isagoona rumaysnaa inay joogaan dhanka Kanada ee marinka Davis aadna uga fog yihiin beriga. qiyaastiisii uu qiyaasay George-na dhab ayay u dhowaatay, balse nasiib darro raggii kale waxay iska indhatireen digniintiisii uu siiyey, waxaana dabashid ahaan u gubeen mid ka mid a doonyihiinii beriga lagu ugaadhsanayay, iyagoo aan ogeyn inay gubayaan fursaddii keli ahayd ay ku badbaadi karayeen. muddo 6 bilooda ayay ku dul sabaynayeen gobolkii barafka ee maalinba maalin ka sii dambeeyay sii yaraanayay, waxayna noloshooda ku tiirsanayd oo quryata xariiftinimada iyo dhabar adayga ugaadhsatadii inweetiga ahaa. ugu dambayntiina 30 Abriil 1873 waxay indhaha ku dhufteen markab nuburiga ugaadhsada oo loonan jiray Tigris, kaasoo noo mariyay xeebaha Newfoundland,
taasi micnaheedu waxa waa in barafkii ku dulgo'doonsanayeen uu xambaaray masaafo dhan 1800 mayl oo u dhiganta qiyaastii 2900 kiilomitir oo dhanka koonfurta iyaguna gaajiyey daragaadiyey neeftuna ay si dirqiya uga soo baxayso ay raggii go'doonsanaa si cajiib uga soo dhex calaamadiyeen badda dhexdeeda markabkaasi ilaa iyo ugu dambayntii badmaaxiintii watay markabkii Tigris ay ka soo dhex saareen badda dhexdeeda kuna hubsadeen meel ammaan ah oo ahayd markabka dhexdiisa 190 maalmood ayay badda dhexdeeda ku luusanayeen kadibna ugu dambayntii way badbaadeen intii ay waxaasoo dham socdeen Sydney isagana dhankiisa ay dhibaatooyin uga furmeen maadaama dhuxushii markabku ay gabaabsisay ahayd waxuu garwaaqsaday inaysan gaadhi karin meel ay degan yihiin ka hor intaanu haddana mar labaad dib ugu soo laaban jiilaalku sidaasi daraaddeed 16 Oktoobar 1872 waxuu qaatay go'aan masiiriya kaasoo ahaa inuu markabka ku waabiyo xeebta Ita ee ku taala waqooyi Greenland kadib markii halkaasi soo gaadheen markabkii Polaris oo laga furfuray shiraacyadii shidaal ku filan aanu ku hadhin waxa uu muuqday uu isku bedelay nusqo looxyo burbura oo badda ku dhex jira shaqaalihii waxay ka soo dhex badbaadiyeen markabka wixii agab ahaa ay awoodayeen waxayna cariis yar ka dhisteen alwaaxyadii ka soo fujiyeen dhismaha markabka qaybtiisa waxayna ku khasbanaadeen inuu dhabar adeegaan qaboobaha jiilaalka iyaguna badbaadadooda ku haleynaya gargaarka ay ka helayaan dadka imwiitiga ee deegaankaasi degan muddo bilooyin ay dhowrayn fursad ay ku baxsadaan markii uu gugii dilaacayna raggii hadhay waxay alwaaxyadii markabka ka dhisteen 2 dooniyo yaryara iyaguna rajaynaya inay gaadhaan biyaha furan ee badda 3 Juun 1874 ay dhanka koonfureed u anbabaxeen bil kadibna waxaa arkay markab nibirga ugaadhsada oo jidka marayay kaasuna soo badbaadiyey inkasta oo xaaladdu aad u adkayd haddana dhammaanba raggii la socday markabkii Polaris waxay nabad ku tegeen guryahoodii marka laga reebo hal qof oo qoriyaata waxaad loola yaabo oo u naxdin badan in safarkii ugu burburka badnaa ee Arctica ee taariikhda Maraykanku uusan keenin dhimasho wadareed sidii kii Franklin ee dhacay 10 sano ka hor balse waxa uu ku soo dhammaaday safarkani gadood khiyaano iyo malaha dil qorshaysan sida loo badinayo markii ay raggii badbaadiyey dalka dib ugu soo laabteen dowladda Maraykanku waxay bilowday baaritaan rasmi ah si loo ogaado waxa dhabta ee ka dhacay Arctica xudunta su'aal isweydiinayna waxa sal u ahaa hal qiso aad u naxdin badnayd welina jawaab loo lahaa taasoo ahayd ma la dilay Charles mise si caadiya ayuu u dhintay ninkii ugu horreeyay markhaatiga laga qaado waxa waa George isaguna durtadiiba waa George si faahfaahsan uga hadlay xurguftii ka dhex jirtay Charles Sydney iyo weliba Polaris waxa kale uu ka sheegay sakhraanimadii iyo fowdadii dhacday geerida Charles kadib iyo eedayntii uu isagu u jeediyey ka hor intaanu dhiman ee ahayd in la sumeeyey guddigii baaritaanka ayaa markaasi u wacday dhanka Frariga kaasuna xaqiijiyey inta badan wixii George sheegay waxaanu ku daray war kaloo naxdin leh kaasoo ahaa inuu Sydney u sakhraansanaa inta badan safarkii dib loogu soo laabanayay dhinaca koonfurta qaar ka mid ah markhaatiyadii kale la wareystay waxay sawireen sawir muujinaya markabkii biyahaanba fowdiya qasiga dhex jiro John Heron oo ahaa adeegii markabka ayaa isna markiisii istaagay waxaanu ka hadlay qodobkii ugu muhiimsanaa oo ahaa koobkii bunka ahaa waxa uu caddeeyey inuusan isagu samayn bunkii uu Charles cabay maalintii u xanuunsaday balse uu diyaariyey ninkii cuntada karinayay John uusan ogeyn waa isaguye inta qofkii koobkaasi taabatay ka hor intaan gacanta loo gelin Charles markii Sydney iyo Polaris su'aalaha la weydiiyey Sydney wax kasta uu difaray waxaanu ku adkaystay inuusan marnaba carqaladayn hogaamintii Charles uuna diidin in waqooyiga loo socdo ama weligii uu sakhraamay markii Polaris isna si toos loo weydiiyey sababta ka dambeysay geerida Charles waxa uu bixiyey jawaab si xeel dheer loo soo agaasimiyey isagoona sheegay inuu aaminsan yahay inuu Charles u dhintay faali ku dhacay awgiis iyo in daaweyntiisii uu siiyey ku jirtay siinta kiniinka kooniinka loo yaqaano oo malaariyada lagu daweeyay ahayd midii ugu wanaagsaneed ee la samayn karayay iyadoo loo eegayo duruufaha jiray ugu dambayntiina toddobaadyo markii markhaati furkaasi la dhegaysanayay guddigii baaritaanku waxay soo saareen natiijadii rasmiga ahayd warbixinta u dambeysay waxay sheegtay inuu Charles u dhintay sababo dabiici ah oo ka dhashay xanuunka faaliga dhakhaatiirtii ciidamada badda iyo kuwii badduba way taageereen natiijadaasi eedeymiin sumayntana waa la gacan saydhay iyadoona loo arkay uun shak iyo baqdin ka dhalatay miirdoorsankii xanuunka ma jirin dacwad lagu soo ogay cidnaba laguma xisaabin wixii dhacay guddigu dhab ahaan way xidheen dembi baadhistii laakiinse geerida Charles waxay weli baaqi ku ahayd mid ka mid ah
halxidhaalayaashii ugu waaweynaa ee Arctica ka dhacay. Qarni ku dhowaad cilmiga casriga ayaa soo dhex galay kiiska si loo caddeeyo waxa dhabta ee ka dhacay markabkii Polaris dhexdiisa. Sannadihii 1968 taariikhyahan darsa culumta Arctica oo la yidhaahdo John C. Loomis ayaa u kicitimay dhanka Thank God Harbor isaguna qorsheynaya inuu qabriga ka soo saaro meydka Charles si lagu sameeyo baadhitaano dhinaca dembi baadhista oo casriya. nasiib wanaagna dhulka barafka daa'imka ka jiro ee Greenland waxa uu sameeyay sidii talaagad baraf oo u kaydinaysa wax walba si dabiiciya. haddii Charles dhab ahaantii la sameeyeyna waxa jirtay fursada in hadhaadiga jidhkiisa ay weli xambaarsan yihiin jawaabta su'aalahaasi. sidaasi daraaddeed isagoo wata koox saynisyahanna Johnsi waxaa loo oggolaaday inuu meydkiisa soo qodo. markii ay ugu dambayntii fureen qabrigii Charles waxay la kulmeen yaab iyo fajac, waayo meydku waxa uu badbaadsanaa si la yaab leh. naxashkiisii, dharkiisii iyo xitaa maqaarkiisii iyo timihiisuba waxba iskamiisan bedelin. haddana badbaadada dabiiciga ayaa u oggolaatay saynisyahanadu inay ka soo qaataan muunado ama saamballo mid ka mid a lafihiisii, ciddiyihiisii iyo weliba timihiisii si loo mariyo baadhitaano kiimiko. natiijadu markii ay soo baxdayna waxay noqotay mid naxdin leh. waxay xaqiijisay wixii uu Charles markiisii horeba isagu ka shakiyey. jidhkiisa waxaa laga helay sunta loo yaqaano arsenic oo aad u fara badan, gaar ahaan timihiisa iyo ciddiyihiisa ayaa laga helay. sunta arsenicta oo waagaasi ka mid ahayd agabka loo isticmaalo caafimaadka ayaa ahayd sun aad u daran una dhimasho badan bini'aadamka. waxaa lagu yaqaanay inay leedahay dhadhan yaro macaana marka la liqayo. qadarka sunta la helay ayaa muujinayay in 2 toddobaad ee u dambeeyey noloshiisa lagu shubay jidhkiisa sun aad u xooggan. markii caddayntii dhabta ahayd gacanta lagu dhigay, taariikhyahanadu waxay dib ugu soo laabteen su'aashii muddada qarniyada ahayd madax xanuunka ku haysay ee ku aadanay safarkii Polaris ee ahayd yaa sumeeyey Kabtan Charles, maxaase loo sumeeyey. shakhsiga ugu horeeya shakiga ugu dul wareegaya waxa uu ahaa Polaris, maadaama uu ahaa dhakhtarka keliya ee markabka saarnaa ee sida tooska gacanta ugu hayay daaweynta Charles. haddii buunka kabtanka sun loogu daray Polaris ayaa ahaa qofka ugu macquulsan ee shurqoolkaasi fulin karayay, balse ujeeddadii ka dambaysay ayaa weli ahayd mid mugdi ku jiro ilaa laga soo gaadhayay sannadkii 2015 markaasuu soo baxay raad cusubi. sannadkaasi waxaa la helay warqadaan hore loo ogeyn oo Charles u qoray gabadh farshaxanka iyo taalooyinka dhisi jirtay oo lagu magacaabi jiray Finia Rim. Finia waxay ahayd farshaxano hibo leh caana ku ahayd dhismaha taalada Abraham Lincoln. Charles xidhiidh dhow ayaa kala dhexeeyey, xitaa taalo yar oo Lincoln leeyahay oo iyadu hadiyad ahaan u siisay ayuu ku dhexaystay qolkiisa markabka Polaris. waxaa soo baxday in Polaris uu isna xidhiidh dhanka warqadaha la lahaa Finia, isla markaasina ay Washington ku dhex kulmi jireen ka hor intaanu safarku bilaaminba. tan ugu muhiimsan waxay ahayd in warqadahaas ay muujinayeen in Charles iyo Polaris laga yaabo in isku qoonsadeen jacaylka gabadhaasi. Polaris ayaa warqad u qoray Finia isagoona u sheegay siduu ugu hamuun qabo inuu mar kale indhaha saaro. haddii uu markaasi haddaba u arkay Charles inuu yahay ninka ku haysta gabadha uu jecel yahay, nacaybkiisu wuxuu noqon karaya mid ka sii qoto dheeruun iskhilaafka xagga shaqada oo keliya taa. inkastoo helidda sunta arsenicta ee jidhka Charles laga helay ay ugu dambayntii daaha ka qaaday sirtii geeridiisa, haddana ma jirto cid aabi loo ciqaabay arrintaasi. markii la xaqiijiyey in dil dhabayay dhacay, dadkii ku lugta lahaayoo dhan wayba wada geeriyoodeen xilgaasi. Polaris waxa uu ku laabtay dalka Maraykanka kadib markuu safarkii fashilmay, waxaanu iska sii watay shaqadiisii isagoo aan wax dhiba la kulmin. Sydney isna marnaba ciqaab rasmiya lama marsiin intuu isna noolaa. ciidanka badduna marnaba dib umaysan furinba kiiskii dembi baadhista Charles, inkastoo caddaymo cusub la helay. Charles waxa uu ku aamini jiray inuu marun soo istaago cidhifka waqooyi, inkastuu aad ugu dhowaaday, haddana waxa uu ugu dambayntii ku dhintay gacmaha raggii safarkiisa iyo badbaadada noloshiisaba uu ku aaminay ee uu isagu gacmihiisa ku soo xushay. haddii aad ilaahay halkani soo gaadhay, aad baan kuugu mahad celinayaa. shaashadda iminka waxa saaran muuqaal kale oo la mawduuca isla qisadani keliya ta guji tan iyo qisadeena tan xigtana. salaam.